madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdiga hogaaminayo ayaa saaka galinka hore ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera iyagoo ka soo kicitimay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa intaasi kadib waxa loo soo galbiyay isla markaana uu socdaal ku soo maray xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera oo halkaasi indhayn iyo saameynta iyo khasaaraha ay u geysteen roobkii ka daayay magaalada Berbera maalmihii ugu dambeeyay. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa kamid ah xaafadaha ay booqdeen isla markaana ay roobku khasaaraha soo gaarsiiyeen xaafadda Barqasan ee dhinaca waqooyi ee magaalada Berbera iyadoo halkaasi ay warbixino ka siiyeen xaafadan iyo khasaaraha kala duwan ee roobku soo gaarsiiyay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera. madaxweynaha ayaa intaasi kadib waxa uu soo kicitimay dugsiga sare ee Bursada ee magaalada Berbera oo ay degan yihiin dad gaaraya ilaa 500 oo qoys oo iyagu ku soo barakacay dugsigaasi kadib markii ay guryahoodii dumeen qaarkoodna ay daadadku ku buuxiyeen guryihii ay deganayeen. waxa halkaasi warbixino ka siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba sida ay ugu gurmadeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera sida gudoomiyaha gobolka Saaxil Ali Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. waxaana ay tilmaameen in dadkaasi ay uga gurmadeen sida ay u heli lahaayeen waxyaabaha ay quutaan iyo waliba goobihii ay roobkaasi ka galayeen intii ay socdeen roobka iyo daadadkii kala duwanaa ee ay keeneen roobkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu si weyn ugu ballan qaaday in xukuumadda Soomaaliland ay kaalin weyn oo gurmada ka geysanayso dadka ku waxyeeloobay roobka ka daayay guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa intaasi kadib waxa uu kicitimay xarunta ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Berbera si uu halkaasi ugu soo xidho tababar u socday ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay siinayeen ciidamada ilaalada xeebaha ee wadanka Ingiriiska. tababarkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday xarunta ciidamada ilaalada xeebaha ee magaalada Berbera. waxa halkaasi madaxweynaha warbixin ka siiyay taliyaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland Janaal Axmed Cismaan. soo qayb gashid xafladda xiritaanka tababarka ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka heleen cutubyo kamid ah ciidamo kamid ah Royal Marineska dawladda Ingiriiska oo saaran markab la yiraahdo Mounts Bay oo ka tirsan fleet la yiraahdo Auxiliary Fleet. ciidamadaasi tababar ayayna siiyeen. tababarkaasi wuxuu socday laba toddobaad. waa tababar qiimo leh oo lagu baranayay takhasusiyaad kala jaad ah oo ciidanka badda uu leeyahay. waxaa kamid ah navigation-ka badmaridda. waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay saraakiil iyo khubaro ka socota wadankaasi Ingiriiska iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunus iyo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Maxamed Waran Cadde. intaasi kadibna madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay fuuleen marka uu leeyahay ciidamada badda ee wadankaasi Ingiriiska iyadoo halkaasi madaxweynuhu ka qayb gali doono munaasabad tababar lagu soo xirayo ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland. isla markaana madaxweynaha iyo wafdigiisa halkaasi qada sharaf lagu sameeyay. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.